caadadii ayaa iga maqan, mar dhow ayaan guursaday, Victoria uur miyaa mise ma aha? Soo dhawaada. Maanta ciwaankaas ayaan rabnaa inaan ka jawaabno ama su'aasha ayaan rabnaa inaan ka jawaabno. Haddaa channel ku cusub tahay fadlan subscribe saar. Haddii aad nala joogtiin fadlan share garee. Runtii haddii aad tahay gabar mar dhow guursatay ama gabar guursatay oo xaas ah oo runtii caado u saxnaa jirtay, caadadiina hadda aysan u imaanin bishaan. Runtii su'aasha ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsan kugu soo dhacaya waxay tahay haddii ay ku imaan weysay caadadii inaad uur qaaday. Waa sax haddii aad tahay gabar xaas ah ama hadda dhow aad guursatay, caadada aysan ku imaanaynin, waxa ugu badan ee maskaxdaada kusoo dhacaya ha ahaado inaad uur qaaday. Because inta badan gabadh caadadeeda u saxnaay oo hal mar caadadeeda weysay, waxa ugu horeeyo ee maxaa la yiraahdaa keeni karo waxay tahay inay gabadhaas uur qaaday. Haddaba bishaarayso inaad uur qaaday. Haddaba maxaa marka isku arki doonaa ama maxaa ani dareemi doonaa si aan u sii hubiyo inaan uur leeyahay? Waxaad dareemi doontaa calaamadooyin badan ayaa isku arki doontaa. Calaamadooyinkaas maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah waxaa isku arki doontaa tabardari inaad dareentid, maxaa la yiraahdaa madax xanuun badan inaad isku aragtid, dhabar xanuun badan inaad isku aragtid, labo badan inaad isku aragtid ee Soomaalida inta badan dhahaan gabadha markii lagu arko in ay tahay walac. Sidoo kale caadadii oo kaa maqnaatana waaba ayada ugu muhiimsanba. Okay, gabdho qaar waxay isku arkaan kaadi badan inay ka imaanayso. Gabdho qaar waxay isku arkaan maxaa la yiraahdaa hurdadii oo maanta dhan inaad rabtid inaad hurdid. Okay, maadaama jirkaaga uu isbedelayo, hurdo badan inaad isku aragtid. Calaamada ayadana muhiimka kale oo ah waxay tahay isku arki kartid naasaha oo barara. Okay, naasaha oo barar ku imaanaya ayadana waxay calaamad runtii muhiim u tahay gabadhaas inay uur qaaday. Haddaba intaas haddaa isku aragtid, aad isku fiirsasid, caadadii kuu saxnaydna aysan ku imaanin, waxay runtii calaamad muhiim u tahay inaad uur qaaday. Okay, laakiin maybe sometimes waxaa jiri kara cudurro qaar oo keeni kara gabadh inay caado ka maqnaato. Okay, uurka kaliya ma keeno, laakiin waxa ugu badan ee keeno inay gabadh caado ka maqnaato oo xaas ah waa uur inuu jiro meeshaas. So haddii marka calaamadaas isku aragtid, caadadii ku saxnayd oo ku imaan jirtin aysan ku imaanin bishaan, waxaa sameysaa waa inaad booqataa ama sameysaa waxa la yiraahdo test inaad sameysaa. Okay, waa inaad tijaabisaa inaad uur qaaday in kale. Soo qaado maxaa la yiraahdaa kan uurka lagu tijaabiyo waxaa lagu gadaa farmashiyaasha, tijaabiso. Okay, haddii aad positive noqotay alxamdulillah waa kaasa. haddii aad weli positive aadan noqonin, waxaa ugu muhiimsan inaad sameyso laga rabo ay tahay inaad booqatid isbitaal. Okay, si loo soo xaqiijiyo inaad uur qaaday in kale, haddii waxyaabo kale ay jiraan si loo xaliyo. Haddaba markii la xaqiijiyo inaad uur qaaday, runtii farxad ay kuu tahay. Waxaa kuu bilaami doono jaani oo ilmahaaga ku beermi doono, ugu dambeynna uu ku dhasho doono insha Allah tacaala. Haddaba maxaa lagaaga baahan yahay marka si caafimaadka cunugaaga iyo caafimaadkaaga u taxadirtid? Waxa runtii cunuga ugu muhiimsan lagaaga baahan yahay waxay tahay marka uur qaadid inaad ku xirnaatid wax la yiraahdo MCH. Okay, ama isbitaal. Runtii waa muhiim jiddan inaad ku xirnaataa caafimaadkaaga iyo caafimaadka cunugaaga. Inta badan runtii haddaa rabtid inuu safe ahaado, waa inaad markasta booqataa MCH si la talin caafimaad lagugu sameeyo. Waxaa jiro daawooyin la qaato gabadha markay uurka qaado. Okay, daawooyin folic acid la yiraahdo iyo daawooyin kale la qaataa jiro gabadha caawinayo, jirkeeda caawinayo, cunugana muhiim u ah. So marka si daawooyinkaas lagugu qoro waa inaad booqataa MCH, caafimaadkaagana maxaa la yiraahdaa loo controla. So maxaa lagaaga baahan yahay marka markasto inaad ku xirnaatid MCH. Sidoo kale waxaa ayadana wanaagsan in computer lagu saaraa. Sometimes waxaa laga yaabaa in MCH-yada qaar aysan yaalin maxaa la yiraahdaa ultrasound ama computer uusan aalin, ay banaanka ku dhahaan ama banaanka inaad iska saarto ay noqoto. So muhiim ay ku tahay because inta badan marka uur qaadid bilaha hore, 3 bilo hore oo kale gabadha haddii uur qaado computer la saaro, runtii computerkaas wuxuu noqdaa midka ugu saxsan inta badan markii la fiirinayo estimate date of delivery wax la yiraahdo ama xilliga dhalmadeeda ku beeyan waxyaabahaas oo inta badan laga tixraaco asaa ugu muhiimsan. So marka 3 qeyb jirta gabadha ay mari doonto intay uurka leedahay. First trimester wax la yiraahdo ah 3 bil hore, 3 bil dhexe iyo 3 bil dambe. 9kaas bil saas ku yahay. Okay, so 3 bil marka 3 bil kasta waxaa laga rabaa inaad computer issaartid, 3 dhexana computer, 3 gadaalana computer in lagu saaro si maxaa la yiraahdaa cunuga caafimaadkiisa iyo maxaa la yiraahdaa la socdo. Haddaba sidoo kale maxaa lagaaga baahan yahay inaad qaadatid maxaa la yiraahdaa talaal. Okay, waxaa jira wax la yiraahdo tetanus oo talaal ah oo adina ku muhiimsan cunugaagana markuu dhalanayo ama cunugaagana u muhiimsan. talaalkaas yaa bixiyo, talaalkaas waxaa bixiya MCH-yada bixiyaan, istaaladana way bixiyaan. So marka muhiim waxay kugu tahay inaad MCH u tagtid waxay tahay daawooyinkaas oo lagu qoro inaad qaadatid, talaalkaas inaad qaadatid, cunugaagana ay markasto control kugu sameeyaan, markasto aad tagtid cunugaaga ay ku dhageystaan, xaaladiisa ka warhayaan,
maxaa la yiraahdaa haddii wax imaadaan maxaa la yiraahdaa ama problem iyo waxyaabo qaar ay shakiyaan inay ku dhahdaan maxaa la yiraahdaa isbitaalkaas booqo isbitaal ay ku xawilaan because MCH kaliya wuxuu ku egyahay waxyaabaha oo caadiga ah okay haddii adkaato runtii waxay u wareejiyaan isbitaalada u wareejiyaan soo marka maxaa la yiraahdaa si caafimaadkaaga markasto uu wanaagsanaado cunugaagan u wanaagsanaado waxa uu miisanaa marka aan kula talinayna waxay tahay marka uu qaadid MCadaas booqo inta ka dhalaysidna la soco insha Allah taala intaas aan ku keenina insha Allah taala wixii su'aalo ah iyo comment ay qabtiin xagga maxaa la yiraahdaa Telegram-ka aadnay soo Telegram-ka noo imaaw wixii su'aalo iyo comment ay qabtiin xagga noo sheeg insha Allah taala waa kaaga soo jaawi doonaa